Ninkan wuxuu ku bilaabanayaa ciidan ka mid ah ciidamada Ameerika oo jawlad ku dhex qaadaya buuraha dalka Afghanistan. Intay ka gaarayaan koox askar oo gaadhigii ka xumaaday. Waxaa ka soo degaya askariga lambar 81 gaadhigiisa wuxuuna weydiinayaa waayo askariga doqonka uu gaadhigu ka xumaaday. Waxaa soo degaya hogaamiyihii ciidanka wuxuuna dhahayaa anaa mas'uul ah ayagoo istagaali raba. Waxaan ogaanaynaa inay isla ciyaarayaan ee walaalo yihiin. Ma ogana tattoo isku mid ah ayaa ku sawiran. Askariga lambar 81 ayaa bilaabaya inuu hagaajiyo gaadhiga walaalkii xumaaday. Walaalkii wuu xanaaqsan yahay sababtoo ah riyodoodii ayay iska daayeen. Wuxuuna ku dhahayaa goobtayadu ma aha saxaradan dhexdeeda. Goobtoodu waxa weeyaan askarta xoogga dalka ee la dhaho asaaciqa. Wuxuuna ku dhahayaa askariga lambar 81 walaalkii saaxiibka kaxayso beddelkayga. Askariga lambar 81 wuxuu isku dayaa inuu walaalkii wax fahansiiyo. Wuxuuna ku dhahayaa manihin ciyaal 18 jir ah mana xamili karno tababarka adag. Walaalkii iska dhagatiraya hadalkiisa wuxuuna ka baryayaa inay ku biiraan askarta xoogga dalka ee asaaciqa. Ku ogolanaya askariga lambar 81 walaalkii uuna ka tagayaa asagoo nabadgelyo ku dhihin. Iyagoo waxba ogeyn ayaa la soo weerarayaa. Weerarkaana adag heer uu ka gaadhay gaadhiyadoodii oo dhan ayuu wada burburinayaa. Kartiina mid ayay u dhimanayaan. Daqiiqado yar kadib ayuu soo kacayaa askariga lambar 81 geed lugta kaga jira ayuu iska saarayaa. Kacayaa si uu u fiiriyo xaalka askarta. Markuu arko inay askartii wada dhinteen aad iyo aad ayuu u naxayaa. Wuxuu u ordayaa si uu walaalkii u raadiyo. Ugu dambeynna wuxuu helayaa walaalkii oo dhulka yaado wada dhiiga. 2 sano kadib ayuu soo kacayaa askariga lambar 81 asagoo saaxiibihii la fadhiya oo ku jira bas ay askartu leeyihiin. Waxaan ogaanaynaa inuu ku riyoonay askariga lambar 81 uuna lugtii dhaawacayd weli aynan bogsanin. Wuxuuna qaataa kiniino si uu xanuunkaas ku dhaafiyo. Kadibna waxay soo gaarayaan saldhiggii tababar ee ciidamada asaaciqa. Waxaana laga dalbanayaa inay iska dhigaan alaabtooda khaaska ah sida moobilada iyo boorsadaha. Waxayna aad uga xumaanayaan in magacaantoodii laga bedelayo oo askari kasta lambar u khaasa loogu yeedhayo. Waxaana loo qaybinayaa lambaraantii. Askartana waa loo qaybinayaa lambaraantoodii ilaa inta laga gaadhayo askariga lambar 81. Kay faylashiisa furaan waxay ogaanayaan inuu 4 jeer oo hore ku dhacay imtixaanka sababtuna waxa weeyaan lugtiisa dhaawaca. Markan sikadiisa ayaa loo aqbalayaa waxaana la siinayaa lambarkiisii hore 81. Kaliya ma aha oo waxaa loo soo bandhigayaa inuu noqdo taliyaha ciidanka sababtoo ah uu ka khibrad badan yahay. Laakiin askariga lambar 81 ma ogolaanayo. Waxaana la iskugu keenayaa dadkii la doortay hal meel. Waxaana u khudbadaynayaa madaxa askarta wuxuuna u sheegayaa inay galayaan tababar adag oo muddadiisu gaadhayso 8 usbuuc. Wuxuuna u sheegayaa barnaamijkan tababar inuu ka mid yahay barnaamijyada ugu adag ee tababar caalamka. Sababtoo ah waxaa imtixaan la gelinayaa awoodooda jir ahaaneed iyo awoodooda naf ahaaneed. Wuxuu la talinayaa inay dadaalaan. Wuxuu kaloo u sheegayaa inay qayb yar oo ayaga ka mid ah khadka dhamaadka gaadhayaan. Waxaana loo sheegayaa inay hadda galayaan dagaal yar. Dagaalkaas yarna waxaa la dhahaa masiirada mawdka. Dadka kaliya ee loo badan karana waa in la dhaafo xariiqa dhamaadka. Askariga lambar 81 wuxuu u eegayaa xariiqa dhamaadka si kalsooni ay ku dheehan tahay. Kadibna waxaa bilaabanaya usbuuca ugu horeeya tababarkuna aad iyo aad ayuu adag yahay. Tuna waxay ka boodayaan gidaarada ayagoo ku jira duruuf adag. Usbuuca labaadna uu ka sii adkaanayaa sababtoo ah askartu waxay ordayaan masaafooyin ka dheer masaafooyinkii hore. Biyahana way ku quusayaan. Usbuuca saddexaadna askar badan ayuu ku adkaanayaa xaalku. Sidaas darteed waa laga reebayaa barnaamijka tababarka. Laakiin askariga lambar 81 horey ayuu u soconayaa. Tababaradana si adag oo xariiftinimo ku dheehan tahay ayuu u dhaafayaa. Heer uu xariiftinimo ka gaadhay. Tababarka orodka ayuu aad ugu horeynayaa askartii ilaa ay ka xaasidaan saaxiibihiisa askarta. Askartuna tababarkii adkaa ayay horey u sii wadanayaan. Tababarkana waxaa ka mid ah dagaalka gacanta iyo adkaysiga jir ahaaneed iyo naf ahaaneedba. Askariga lambar 81 wuxuu muujinayaa inuu asagu ugu awood badan yahay. Askariga lambar 81 waa nin aamusnaan badan oo dadka dhex gelin. Inkastana lugtii dhaawaceed ayaa xanuunta. Wuxuuna si joogto ah u qaataa xanuun baabi'iye. Intaa kadibna waxa uu bilaabanayaa tababarka shiishka. Madaxa askartuna wuxuu weydiinayaa askarta ayaa galay dagaal caadi ah. Ku maqlana jawaabaha askarta aad iyo aad ayuu ugu
jeesi ah sababtoo ah midna muun gelin dagaal caadi ah. Inta laga gaadhayo askariga lambar 81 wuxuuna ku dhahay taliyaha, waxaan ka mid ahaa askarta caawimaada degdega ee loo diray dalka Afghanistan. Taliyaha iyo askartuba way yaabayaan sababtoo ah way og yihiin kooxda waxa ku dhacay. Askartu waxay ka wada hadlayaan askariga lambar 81. Askartii wada hadlaysay mid ka mid ah ayaa dhahaya askariga lambar 81 waxa la siiyay suunka xidigta dahabiga wuxuu muujiyay kartidiisa iyo awoodiisa. Intaa waxaa dheer walaalkii ayuu garbaha ku waday in muddo gaadhaysa 16 kiiloomitir, laakiin uu badbaadin kari waayay oo walaalkii wuxuu ku dhintay gacmihiisa dhexdiisa. Waxayna fahmayaan askartu sababtuu askariga lambar 81 u yahay nin aamusnaan badan oo keligii fadhiya. Tababarkuna horey ayuu sii socdaa, welibana si ka adag sidii hore. Askartii kasoo qayb gashay tababarkana aad ayay u sii yaraanaysaa. Askarta soo hadhayna waxay baranayaan ku soo degaa bariga. Waxay kaloo baranayaan inay caawiyaan askarta ayaga ka dhaawacmada. Askariga lambar 81 wuxuu soo xasuusanayaa wixii hore u dhacay, waxaana soo galay isbuucii 8. Isbuuca 8aadna waxaa la tijaabinayaa askarta adkaysigooda. Askari kastoo ayaga ka mid ah waxaa loo dhiibayaa biro, wuxuuna hoos soconayaa biyaha. Askartuna hal ayay u soo baxayaan marka laga reebo askariga lambar 81 soo xasuusanaya maalintii walaalkii garabka ku waday uu la socday ilaa intuu uga dhowaanayay saldhigga. Kaluu soo xasuusanayaa xanuunkii iyo illintii ka daadanaysay markuu dhimanayay walaalkii. waxaasoo dhanna dareemihiisa ayay kicinayaan, horey ayuuna u soconayaa sababtoo ah wuxuu rabay inuu ka gudbo xariiqa dhamaadka si uu uga mid noqdo askarta saa'iqa. In askariga lambar 81 uu daalaya oo biyaha dhexdiisa ayuu ku dhex suuxayaa. Askarta ayaa si degdeg ah uga soo saaraya markuu soo kacona. Madaxa tababarka ayaa ku dhahaya waad waalan tahay, ismana ilaalinaysid. Dibna waxaa lagu yeedhayaa askariga lambar 81 xafiiska taliyaha. Askariga lambar 81 wuxuu ku horsugayaa xafiiska, wuxuuna daawanayaa TV-ga. Markuu wuxuu sheegayaa in lagu arkay meere cajiib ah oo fadaa'i ah oo dhulka ku kor wareegaya. Kaalada naasana aad ayay ula yaabaysaa sababtoo ah meerahan uu furfurmanaya. Waxayna saadaalinayaan inuu ahayn meero keliyaata uu yahay lakabyo isku soo aruuray. taas ayaa sabab u ah inuu meeruhu kala furfurmado. Hadda laakiin khatar kuma aha dhulka. Intaa kadibna wuxuu soo galayaa askariga lambar 81 xafiiska taliyaha, wuxuuna u sheegayaa inay asaga iyo la taliyihiisu go'aansadeen inay ka bixiyaan barnaamijka tababarka. Anaaqaya askariga lambar 81 sababtoo ah muu xajabinin hadalkan. Wuxuuna ku dhahayaa waan ku wada guulaystay imtixaanadii kamana tegayo barnaamijkan. Siinaya taliyuhu in la isku haysanin awoodiisa jir ahaaneed, laakiin waxaa laga walwalayaa awoodiisa naf ahaaneed. Wuxuuna ku dhahayaa askartu waxay ii sheegeen inaad habeenkii seexanin ood kuriyootid riyooyin xunxun. Askartana lama sheekaysatid oo keliga ayaad meel fadhiisataa. Intaa waxaa kasii daranna inuu diiday inuu noqdo taliyaha kooxda. Waxaasoo dhanna waxay ka dhigayaan askari aan u qalmin inuu ku biiro ciidamada saa'iqa. Wuxuu ku dhahayaa aad ayaan ula dhacsanahay awooddaada jir ahaaneed, laakiin waxay ahayd markii lagu soo weeraray inaad nasatid. Waxayna ahayd inuu dhakhtar aado si looga dhakhtariyo wixii ku dhacay. Askariga lambar 81 ma uusan samayn wuxuu taliyuhu u sheegayo. Sidaad uga soo baxay dhakhtarkii weerarka kadib, wuxuuse soo diiwaangeliyay askarta saa'iqa oo la diiday 2 jeer in ka badan, haddana uu ku celcelinayay barnaamijka 2 sano. taliyuhu wuxuu soo bandhigayaa inuu saxeexo waraaqadii lagu eri lahaa. Wuxuuna u sheegayaa inay uga fiican tahay inuu asagoo raaliya ka baxo barnaamijka intii la eri lahaa. laakiin askariga lambar 81 uu diidayaa, wuxuuna dalbanayaa inuu dhammaystiro barnaamijka ilaa khadka dhamaadka. Taliyuhu xanaaqayaa wuxuuna ku dhahayaa iga bax xafiiska. Intaa kadib waxay go'aansanayaan taliyaha iyo la taliyihiisu inuu iska sii wato barnaamijkiisa. Inta labaadna waxaa la iclaaminayaa kooxda dhammaystiranaysa tababarkooga. Askariga lambar 81 iyo askar yar oo kale kooban ayaa la dooranayaa inay sii dhammaystiraan barnaamijka. waxaana loo diyaarinayaa dagaal la dhaho masiirada dhimashada. Askartu taliyaha ayay kusoo ururayaan, wuxuuna u sharaxayaa mishinkooda. wuxuuna u sheegayaa inay soo badbaadinayaan diyaarad ku dhacday dhulka cadowga, ayna keenayaan dhulkooda diyaaradda si ay u baabi'iyaan intaynan ku dhicin cadowga gacantiisa.
askariga lambar 81 uu yaabayaa sababtoo ah taliyuhu wuxuu ka dhigayaa taliye kooxda. In askariga lambar 81 wuxuu ka eegayaa taliyaha indha kulul sidii asagoo u ballan qaadaya inuu badin doono wax kastoo dhaca. Taliyuhuna wuxuu ku dhahayaa askarta waa inaad 7 biir ka gudubtiin xariiqa dhamaadka. haddii kooxda lasoo weeraro oo lasoo qabto mishinku sidaas ayuu ku fashilmaday. Ku guuleystaan mishinkana taliyuhu asaga laftirkiisa ayaa siinaya xidigta ciidamada asaaciqa. intaa kadibna waxay kulligood fuurayaan helikabtarka waxayna gudagadayaan mishinka. intaa kadibna way gaadhayaan goobtii. askartana waxaa loo soo dejinayaa 2 dufcadood. intaa kadibna askariga lambar 81 wuxuu u dhaqmayaa sidii taliyaha ku dhaxayaa 24 saac ayay haystaan si ay u fuliyaan mishinka. buuraha ayay dhex soconayaan si ay u raadiyaan diyaaradda ay baabi'inayaan. markuu habeenku soo galo waxay go'aansanayaan inay ku dhex nastaan dhirta. ay nasasho u fadhiisteen waxay arkayaan wax kor maraya sidii kantaal oo kale. ayna isdhahayaan wuxuu ka mid yahay dabinada ee madaxdu nidhigeen. waxayna go'aansanayaan inay goobtooda ka tagaan ee ay hore u dhaqaaqaan. maalinta labaadna waxay arkayaan wax hor yaalla. waxayna isdhahayaan waa diyaaraddii aad baabi'in laheedeen. askariga lambar 81 wuxuu bilaabayaa inuu baleen u dego si ay u baabi'iyaan diyaaradda. wuxuuna u sheegayaa qof kastoo asaga ka mid ah wixii uu samayn lahaa iyo goobtii uu tegi lahaa. ayay ula yaabayaan markay arkaan inuu jiheeyii ka xumaaday ayna ateenadiina waayeen. askariga lambar 81 wuxuu ku amrayaa wax kastoo dhaca inay burburiyaan diyaaradda. si degdega ayay u dhaqaaqayaan waxayna u diyaarsanayaan bambooyinkii si ay u qarxiyaan. askariga lambar 81 wuxuu ku arkayaa iftiin meel mucayana wuxuuna u tagayaa si uu soo fiiriyo. askarta kalena waxay bambada ku dhajinayaan diyaaraddan la yaabka leh. wax yar kadib ayuu tagayaa askariga lambar 81 goobtii wuxuuna arkayaa diyaaraddii loo diray inay qarxiyaan. markaasna wuxuu fahmayaa inay kooxdiisu qarxinayaan diyaarad qalad ah. wuxuu u ordayaa si uu uga digo laakiin diyaaraddii bambooyinkii way ku qarxayaan. laakiin diyaaraddan qaruxu waxba kama qaadayo oo waxba saameyn kuma yeelanayo. si kadis ah ayay u dhaqaaqaysaa waxayna isku beddelaysaa aalad weyn. waxay iskaangaraynaysaa askarta horta taagan. askartuna waxba ma fahansanaa. kadisle ayay dagaal ugu bilaabaysaa oo waxay la dhacaysaa kantaalo. askartana mid ayay u dilaysaa. askariga lambar 81 wuxuu imanayaa waqtiga munaasibka ah oo wuxuu badbaadinayaa askari. intaa kadibna waxay dhex ordayaan dhirta. aaladuna horey ayay usii wadataa kantaaladeeda waxayna kusoo tuuraysaa bambooyin. meel dheer ayayna kasoo dhacayaan. badan oo askarta ka mid ah waxaa gaadhaya dhaawacyo culus. askariga lambar 81 wuxuu soo xasuusanayaa maalintii weerarka asagoo fiirinaya saaxiibihii wada dhintay. si dhaqsi leh ayuu soo kacayaa wuxuuna ku ordayaa askari dhaawac oo qaylaya afkuuna qabanayaa si aynan aaladda dagaalka goobtooda u xadidin. saaxiibkooda ayay u tegayaan oo geed garabka kaga jiro wayna ka soo saarayaan laakiin xaaladiisu aad ayay u xun tahay. gacmahoogana ayuu ku dhex dhimanayaa. intaa kadibna waxay ogaanayaan askariga lambar 7 inuu lugta dhaawac ka yahay. si dhaqsi leh ayay ugu jiidayaan dhinaca buurta. lambar 81 wuxuu weydiinayaa askarta intee leeg oo dhibaato ayaa nagu dhacday. waxay u sheegayaan in dad badan ka dhinteen. intaa waxaa dheer waxaa la laayahay askariga 111 una hayaa telefoonkii ay ka wada xidhiidhi lahaayeen. askariga lambar 81 wuxuu fuulayaa buurta si uu usoo qaado telefoonkii ay ka wada xidhiidhi lahaayeen. kadibna wuxuu ka naxayaa markuu arko askariga 111 inuu dhintay uu telefoonkiina xumaaday. intaa kadibna wuxuu arkayaa askariga lambar 81 aaladda dagaalku ayadoo dilaysa askari kale. intaa kadibna uu soo noqonaya askariga lambar 81 wuxuuna u sheegayaa askarta telefoonkii xumaaday. aaladda dagaalkuna meesha iskaangaraynaysaa ayagana way raadinaysaa. darteed waa inay si dhaqsi leh uga degaan buurta. ayay buurta kasoo dejisanayaan mid ayay u soo degayaan laakiin aaladii ayaa u imanaysa waxayna dilaysaa askarigii xadhiga korka ka hayay. inta ayay ku hoos dhuumanayaan. aaladuna si dhaqsi leh ayay u iskaangaraynaysaa goobta. askariga lambar 81 iyo saaxiibihii iskaanku dhaafayaa laakiin askari ayaga ka mid ah ayuu iskaanku lugtiisa soo gaadhayaa. aaladii dagaalkana mar labaad ayay ku bilaabaysaa madaafiicdii aad la dhaceysay laakiin orodkooga ugu badan ayay kaga ordayaan. waqti yar kadib way ku guulaysanayaan inay ka cararaan aaladii waxayna go'aansanayaan inay goobtan ku yara nastaan wax yar. askariga lambar 81 wuxuu ogaanayaa inay 6 askari keliya soo hadheen wuxuuna bilaabayaa inuu dhaqtariyo lugta askariga lambar 7. gacantiisa ayuu qabanayaa askariga lambar 7 uuna dhiirigelinayaa. askariga lambar 7 wuu mihir daboolmayaa xanuunka awgii.
askariga lambar 81 wuxuu sharaxayaa asxaabtiisa inay qarxiyeen diyaarad khaldan una u sheegayaa aaladda ay qarxiyeen inay leedahay jawi burburigto oo adag sina waxay sababaysaa inuu jeeyaa ka khalkhaliyo wuxuuna ka dalbanayaa kale uu sheegayaa inay horey u sii wataan socdaalkooga si ay u gaadhaan goobta tababarka askariga lambar 7 kor ayay u qaadayaan horeyna ayay ula soconayaan ilaa intay ka gaadhayaan badda arkayaan inay baddu aad u socoto ayna aanan la mari karin in xadhig lagu kormado mooyaane wuxuu go'aansanayaa askariga lambar 81 inuu badda dabaasho si uu jihada kale xadhiga ugu soo xidho soo ay naftiisa halis ku tahay haddana uu dabaalanayaa ilaa intuu ka gaadhayo jihada kale uu qabsanayo gidaarka kor u soo fuulayo xadhigana geedka ugu xidhayo ayna bilaabayaan saaxiibihii inay isticmaalaan xadhiga si ay badda u dhaafaan kadibna askariga lambar 15 wuxuu qaadayaa askariga lambar 7 si uu u dhaafiyo badda laakiin xadhigii ayaa ku dhagaya baashii saaxiibkii lagu waday wuxuuna isku dayaa inuu ka furo laakiin wax faa'iido ah umay soo kordhin markaa saaxiibihii ayaa ku soo caruraya si ay ula qabtaan laakiin nasiib xumo aaladii ayaa kor imanaysa saas ayay ku furaysaa kulligoodna badda ayay ku dhexdhacayaan askariga lambar 81 dhowr jeer ayuu kasoo dhex muuqanayaa iskaanka aaladda laakiin wuu ka gambanayaa markasta ayuu soconayaa ilaa intuu ka gaadhayo saaxiibihii waxay la yaabayaan markay arkaan inuu ka horeeyo biyodhac weyn xoogoo dhanna mid ayay uga soo dhacayaan biyodhaca markaana askariga lambar 81 si xooga ayuu qabsanayaa baashii uu ku jiray askariga lambar 7 uunan biyuhu u geynin meel ka fog ayaga laakiin nasiib darro askariga lambar 81 wuxuu ku dhex suuxayaa biyaha ayay kasoo dhex bixinayaan oo kor ayay u jiidayaan ciyaar kadibna waxaa soo kacaya askariga lambar 81 wuxuuna is arkaya asagoo haya baashii saaxiibkii ku jiray biyihiina way u mahad celinayaan sababtoo ah wuxuu ka badbaadiyey saaxiibkii dhimasho mid ka mid a saaxiibihii ayaa kusoo biiraya wuxuuna u sheegayaa badda markaa kasoo wada dhaceynaya ayaa nigu dhex arkay kadibna waxay kulligood maqlayaan codkii aaladoo soo dhowaanaya dhaqsila ayay u dhaqaaqayaan si ay u gaadhaan tuulada kadibna waxay arkayaan dabinno loo dhigay waxayna ogaanayaan inay aad iyo aad ugu dhow yihiin meeshii mishiinka loogu diray laakiin nasiib darro markay soo gaadheen goobtii waxay arkayaan goobtii oo la baabi'iyey ayna saadaalinayaan inay aalad waxan oo dhan ka dambeysay kadibna wuxuu arkay askariga lambar 81 inay aaladda dagaalku buurta laba u kala jebisay ayna xaqiiqsanayaan aaladan inay ka timid meero kale waxayna soo xasuusanayaan wararkii sheegay meeraha ku kor wareegayay adduunka iyagoo isla hadlaya cod ayay ka hoos maqlayaan wayna ka dulgurayaan waxayna ku hoos arkayaan mid ka mid a taliyayaashii waana midkii matalayay diyaaradii lasoo badbaadinayay ninkii duulinayay wacyo halis ayaa soo gaadhay uuna dhimanayaa askariga lambar 81 wuxuu ka dalbayaa inay sii wataan socodkooga laakiin askariga lambar 15 ayaa kasoo horjeesanaya wuxuuna ka dalbanayaa inay daqiiqad la qaataan ninkii taliyahoogii dhintay hadda siceli ayuu ku dhahayaa askariga lambar 81 laakiin askariga lambar 15 wuxuu ku dhahayaa manihin agteer sidaadoo kale sababtoo ah ma qaadi karo jidhka taliyaha dhintay mana geyn karo qaacidada sidii walaalkii u qaaday markii lasoo weeraray askariga lambar 81 uu ku xanaaqaya wuxuuna ku dhahayaa walaalkii waan gaadhsiin kari waayey saldhigga asagoo saldhigga 100 mitir u jira ayuu ku mihir daboolmay walaakiina xilligaas u noolaa waqtiisa ayuu eedeynayaa wuxuuna dhahayaa ma istaahile xidigaha lay siiyey askariga lambar 15 aad iyo aad ayuu u naxayaa markuu ogaado xaqiiqda uuna degaya laakiin askariga lambar 81 dagamarinaya mawduucii wuxuuna dhahayaa noo hagaajiya gaadhigan gaashaamana meesha taagan goodhanna way isku soo aruurayaan gaadhiga gaashaamana way kasoo bixinayaan meeshii haysatay intaa kadibna way fuulayaan waxayna isku diyaarinayaan inay u dhaqaaqaan dhinaca saldhigga kadibna waxaa kusoo baxaysa aaladii waxayna go'aansanayaan inay hub la dhacaan laakiin waxay arkayaan gaadhiga gaashaaman inayna rasaas ku jirin askariga lambar 15 ayaa ordaya si uu ugu soo qaado qumaca laakiin isagoo soo socda nasiib xumo aaladda dagaalka ayaa ku dhufanaysa xabad laakiin wuu soo tuuray intuun dhimanin ka hor rasaasta ilaa ayay u qumacaynayaan madfaca ku dhagan gaadhiga gaashaama aaladda dagaalkana rasaas ay iimaanka kaga qaadayaan laakiin rasaastu waxba kama qaadayso aaladda dagaalka waray ayayna ugu soo socotaa waxaana ka dhexdhacayaa herdan adag aaladda dagaalkana si aan innaba caadi ahayn ayay ula dhacaysaa kandaalo ilaa intuu gaadhiga gaashaaman waddada ka baxayo uu ka dhacayo gidaar dheer
Askariga 81 iyo saaxiibihiina kantaroolka ayaa kulamaya, waxayna ku dadaalayaan inay kantaroolkayga dib u soo celiyaan. Kadibna waxay arkayaan in aaladii ka daba hadhay, aad iyo aad ayayna u farxayaan. Iyagoo ismoodaya inay ka carareen, aaladii ayaa ka soo horbaxaysa, koronto ayayna ku sii daynaysaa. Askariga lambar 81na aad ayuu u naxayaa markuu arko asxaabtiisa oo mid u dhimanaya. Askarigii lambar 7na wuu ka dhacayaa gaadhiga, waxaa soo qabanaya askariga lambar 81, wuxuuna soo qaadanayaa bunduq, wuxuuna ku dhufanayaa buurta. Buurtii ayaa kusoo kordhacaysa aaladda. Dhagaxaantii ku kordhacay ayaa aaladda yar calqalaynaya. Dagaalkana gaadhigoogii ayay kantaal ku dhufanaysaa, wayna qarxinaysaa. Askariga lambar 81na wuu suuxayaa. Yar kadib ayuu soo kacaya askariga lambar 81, wuuna arkayaa saaxiibihii wada gubtoo dhulka yaala. Dhaxaanta ayuu fuulayaa si uu u eego in aaladii burburtay iyo in kale. Arkayaa inay qayb keliyaata uun ka dhacday. Dagaalkana wuxuu arkayaa inay si fiican u shaqaynayso, wuuna arkayaa inay la xidhiidhayso qof ka baxsan adduunka. Sigaasna wuxuu arkayaa askariga lambar 7 inuu ka agdhow yahay, uuna u tegayaa, wuuna ogaanayaa inuu weli nool yahay. Waqtigaasna aaladda dagaalka ayaa iskaan ka qaadaysa. Askariga lambar 81na saaxiibkii ayuu qabanayaa, uuna jiidayaa roob asagoo ku da'ayo. Wuxuu isku dayaa inuu fuulo meel dheer, laakiin wuu ku fashilmanayaa. Isku dayayaa marar badan ilaa intuu ka daalay uu saaxiibkii ag jiifsanayo. Askariga lambar 7 ayaa soo kacaya, wuxuuna ku dhahayaa walaalkaas si fiican ayaan u garanayaa. Wuxuuna u sheegayaa walaalkii markasta inuu asaga uun ka hadli jiray. Askariga lambar 81 aad ayuu u xanaaqayaa, sababtoo ah wuxuu u malaynayaa inuu walaalkii dayacay. Sababta awgeed ayuu rabay inuu dhaafo xariiqa dhammaadka, wuxuuna u rabay inuu isdiiwaangeliyo askarta saaciqa. Askariga lambar 7 wuxuu ku dhahayaa hadduu walaalkaa noolaan lahaa hadda, aad iyo aad ayuu kuugu faani lahaa. wuxuuna ku dhahayaa askari aad iyo aad u karti badan baa tahay, sababtoo ah ilaa hadda maad rajo dhigin oo dhibaatooyinkan oo dhan ku dhacayaan. Ayagoo isla hadlaya, wuxuu arkayaa askariga lambar 81 inuu ka agdhow yahay meel dhismo. Wuxuu maqlayaa aaladii dagaalka oo aad iyo aad ugu soo dhowaanaysa. Fikrad ayaa ku soo dhacaysa, wuxuu go'aansanayaa inuu ku dhaqaaqo. Wuxuuna ka dalbanayaa askariga lambar 7 inuu sii sugo ilaa intuu ka soo noqonayo. Wuu ka soo tago saaxiibkii uu goobta yimaado, wuxuu arkayaa cagaf weyn. Kadibna wuxuu tagayaa kaydkii, wuxuuna ku arkayaa bambooyin badan. Dhaqsile ayuu u tagayaa goobtii laga kantaroolayay, wuxuuna shidayaa dhagaxaanta baashii soo daadinaysay. Aaladdu ayadoo ku soo socota askariga lambar 7 wuxuu ridayaa falaargan askariga lambar 81. Aaladuna waxa u leexanaysaa dhanka iyo lambar 81. Aaladdu goobta ayay u sii socotaa. Goobta markay u dhowaatana waxaa ku qarxaya bambooyinkii uu buurta ku xidhay askariga lambar 81. Askariga lambar 81 ayaa u imanaya asagoo cagafkii wada. Dib ayuu u riixayaa si uu u gaarsiiyo baasha dhagaxaanta daadanaysa. Sababtoo ah wuxuu rabaa inay dhagaxaantu meesha ay ka neefsanayso ka dhex galaan. Kastoo aaladdu xoog ugu soo socoto oo ay iska difaacayso, laakiin askariga lambar 81 wuu kantaroolaya aaladda. Intay ka buuxsamayaan dhagaxaantu meeshii ay ka neefsanaysay, aaladda xarbiguna way qarxaysaa. Ka soo daadanaya bambooyin badan. Askariga lambar 81 wuu ka cararayaa si aanan ugu qarxin. Markuu ka baxo goobta, bambooyinku qarxaya oo qarax weyn ayaa dhacaya. Maalinta labaadna waxaa imanaya askariga lambar 81 asagoo garabka ku sida askarigii lambar 7, wuxuuna soo kor istaagayaa xariiqii dhammaadka. Lihii ayaa u imanaya, wuuna uga mahad celinayaa askariga lambar 81 wuxuu sameeyey. Aad ayuu uga raaligelinayaa, sababtoo ah way u soo diri kari waayeen gurmad. Sababtoo ah si kadisa ayay u soo weerareen aaladaha dagaalku. Adduun kale ayaana laga soo weeraray ayuu ku dhahayaa. Kadibna waxaa la baarayaa caafimaadka askariga lambar 81. Wararkuna waxay sheegayaan inuu meerihii kor wareegayay adduunka uu sababayo dhibaatooyinkan oo dhan. 6 saacadood ka hor ayaa la ogaaday lakabyadii ka soo daadanayay ayaa isku bedelay aaladaha dagaalka. Aaladihii ayaa weerar ku bilaabay saldhigyadii iyo shacabka guryahoogii. Askartii caalamka oo dhan waxay ku guuleysteen inay iska difaacaan dufcadii koowaad. Laakiin dayax-gacmeedka sawirkiisa waxaa laga arkay inay soo socoto dufcad labaad oo ka awood badan dufcadii koowaad. Dowladihii caalamka oo dhan waxay ku heshiiyeen inay si wada jir iskaga caabiyaan aaladahan arxanka daran. Ciidanadii oo dhan ayaa la heegan geliyey, kuwii badda, kuwii cirka iyo kuwii dhulkaba. Askariga lambar 81 waxa uu yeedhayaa madaxa ciidanka, wuxuuna ku dhahayaa sideed uga takhallusay aaladda dagaalka asagoon wax huba wadanin. Wuxuuna ku dhahayaa aaladda dagaalku waxay leedahay
meel ay daciif ka tahay waxa weeyaan korka meesha ay ka neefsato fiican hadaa loo xidhana way qarxaysaa. Madaxa ciidankuna wuxuu ka dhigayaa askariga lambar 81 taliyaha guutada dagaalka ka qayb galaysa wuxuuna ku dhahayaa askartu way garanaysaa waxa samaysay waxaadna u tahay hero. Askariga lambar 81 wuxuu khudbadaynayaa ciidanka uuna dhiirigelinayaa wuxuuna ku dhahayaa dalkiina ka difaaca cadowga. Ciidankoo dhan xamaasada ayaa ku kacaysa waxayna u ordayaan si ay diyaaradaha u fuulaan. Shinkoogii ayay guda galayaan filimkuna saas ayuu ku dhammaanayaa. bartaas ayuu noogaga egyahay filimkeena maanta. Intaasi intaa ku kulmeeno filim cusub. Ciao.